الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. soo dhawaada walaalayaal, ilaahay baa mahadlay subxaana watacaala. nabi maxamed nabadgeliya iyo naxariis korkiisa ahaato. aada iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa. kusoo dhawaada walaalayaal barnaamijkeynii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa barashada salaada. intaynaan walaalayaal barnaamijka u gelin, waxaan idin xasuusinayaa in hadday tahay markii koowaad aad aragto channelkan ama videogan, hanala dhaafin subscribe iyo like iyo share badan si aad u heshid ajar badan. waayo goobtan waxaa laga soo tabiyaa walaalayaal waa khayr iyo wanaag. waxaa jira goobo badan oo aan wanaag iyo khayr midna laga tabin oo iska maalayacniya, haddana share badan iyo like badan iyo subscribe badan la siiyo. laakiin goobaha wanaagga laga tabiyo iyo khayrka iyo wacyigelinta bulshada iyo kobcinta dadka maankooga iyo maskaxdooda, goobahaas ayaa mudan in la taageero. subscribe-ka macnaheedu waxa weye waa taageerid. qofku wuxuu helayaa kalsooni uu kusii wado barnaamijka uu wado. marka qofka wanaagga wado si uu kalsooni u helo waa in subscribe badan la siiyo oo la taageero. nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, addaalu cala alkhayri ka faacili. qofka wanaagga dadka tusiyaa wuxuu la mid yahay sidii qof wanaagga sameeye oo kale. barnaamijkeeni haddaynu sii wadano walaalayaal, waxaynu kusoo dhex jirnay laba barnaamij oo hore. waxaan kasoo hadalnay salaada iyo ahmiyadday leedahay iyo kaalintay ku leedahay diinta islaamka. waxaan kale kasoo hadalnay khatartay leedahay ka tegitaanka salaada laga tago. waxyaabaha haddaba muhiimka ay dadka qaar ku doodaan dadka aan tukan waxa weeye inuu ilaahay yahay subxaana watacaala ghafuur raxiim. marka wuxuu ka odhanayaa qofku salaada haddaana tukan aakhiro waad badbaadi kartaa, waayo ilaahay waa ghafuur raxiim. hadalkaa ilaahay waa ghafuur raxiim been maaha, waa run. laakiin ilaahay subxaana watacaala naxariistiisu waxay gaadhaa waa qofkii mutaystay ayuunbay gaadhaysaa. oo ilaahay wuxuu yihi waraxmatii wasicat kula shay fasaaktubuhaa waraxmatii wasicat kula shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إلهي وحده نحريستيدو wax walbo ay ka balaaranta. macnaha naxariista ilaahay waa balaaranta, laakiin ilaahay wuxuu naxariisteeda waxaan ugu talagalay kuwa ilaahay ka cabsada aakhiro marka la joogo. kuwaasaan ugu talagalay kuwa ilaahay ka soo cabsaday, sakada bixiyey, ilaahay aayadihiisana rumeeyey. marka naxariista ilaahay markaad rabto inaad hesho waa inaad tahay qof mutaystay oo ilaahay daacaddiisii la yimid. ilaahay wuxuu ku amray sameeyey, ilaahay wuxuu kaa reebana ka dheeraaday. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis qudsiya oo ilaahay uu kasoo warinayay, ilaahay wuxuu yihi xadiisu qudsiga, maa aqala xayaa, yaa ka xishood yar buu ilaahay yihi, man yatmacu fii jannati bigayri camali. qof raba jannadayda oo damaacinaya laakiin aan camal samayn. waa inaad camal samayso markaad ilaahay jannadiisa rabto, waa inaad shaqaysato. kayfa ajuudu biraxmatii buu ilaahay yihi calaa man bakhiila bitaacati. sidaan ugu deeqaa naxariisteeda qof ka bakhaylay isaguba inuu i adeeco oo wixii aan amri la yimaado waxaan ka reebin ou ka tago. markaa qofka le naxariista ilaahay way ballaaran tahay, oo haddaana tukan naxariista ilahay baan ku badbaadaya. waxa weeye naxariista waxa lagu helaa bilcamali saalix. camal wanaagsan horta samee, wataqwa walixsaan, alla ka cabsi la kaalay oo ilaahay wuxuu ku amray samee, wuxuu kaa reebayna ka tag. ixsaan samee, wanaag dadka u samafal. wa xusnu dhanni billahi tacaala waaliimaani bih. ilaahay malo fiican ka malayso, ilaahayna rumee. camalka wanaagsan wuxuu rumeeyaa qofku wuxuu sheeganayo ayuu rumeeyaa. marka qofka inuu iska hididiilo ku noolaado maaha. qofku waa inuu yahay qof caamila oo shaqaysanaya oo jaada weynay. qof ay ka dhab tahay iimaanku oo shaqaysanaya wey. laakiin qofku intuu meel iska fadhiisto inuu yidhaahdo maaha ina allaha ghafuur raxiim, ilaahay waa ghafuur raxiim, ma tukanayo. ina allaha ghafuur raxiim, ma soomayo. saka ma bixinayo, waa ghafuur raxiim. laysa aliimaan, wuxuu yihi rasuulku, laysa aliimaanu bitamani. iimaanku maaha wax qofku iska hididiilaysto iska sheegto, walaakin maa waqara fi nafs. iimaanku waa wax nafta dega. wasadaqahu alcamal, camalkuna uu ka rumeeyo.
iimaanku waa wax qalbiga dega, makhraatina waxa ka ah oo makhraati ka noqdo oo rumeeya waa camalkaad samayso, shaqada samayso. wuxuu rasuulku wa inna qawman gharrathum al-amani hatta kharaju min ad-dunya wala hasanata lahum. dad baa jira hididiilo iskaga nool oo sidaa ku geeriyooday iyagoon weligood xasano samayn. waxaana yidhahdeen ilaahay baanu mala ka malaysanaynaa wanaagsan, ilaahayna way beeniyeen. low axsanu dhanna la axsanu alcamal. wuxuu rasuulku haddii malahoogu mid run ahaan lahaa camal wanaagsan bay samayn lahayn. markaa waxaan kusoo gunaanadaynaa ilaah waa ghafuur raxiim, laakiin naxariista ilaahay subxaanahu watacaala iyo dembi dhaafkiisu waxay gaadhaa oo qura maalinta yowm alqiyaamaha qof ilaahay rumeeyey si dhaba. rumaynta ilaahay si dhabaad u rumaynaysaana waa inuu makhraati ka noqdo camalkaad samaynaysa, waa inuu mid makhraati ka ah oo ilaahay wuxuu ku amray aad la imanayso, wuxuu ilaahay kaa reebina aad ka dheeraanayso. intaas baan caawa kusoo gunaanadaynaa qaybta saddexaad. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum. waxaan idin xasuusinayaa hadday tahay markii koobaad hala dhaafin subscribe channelkan inaad samayso. bartan waxaa ka bixi doona insha allahu tacaala casharo kala duwan oo ka mid yahay kan tacliimu salaa, barashada salaada, iyo taariikhu lquraa oo isagana aynu qaadan doono habeeno kala soo socda insha allah, taariikhda dadka quraada ahaa iyo barnaamijyo kale insha allah soo socda. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.